dhegaystayaal waa 1 bisha Oktoobar saacadda Afrikada Barina waa 7 subaxnimo oo gow ah qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo dhigiisa Ruushka ku eedeeyay inuu qaaday tallaabo liddi ku ah shuruucda qaramada midoobay kadib goosashadii gobolka ka tirsan Ukraine afgambi ka dhacay dalka Burkina Faso walwal laga muujinayo nolosha dadka deegaanada abaartu ku dhufatay ee gobolka waqooyi bari Kenya annaga hadda wixii yaroon samaynahayn waa un dadaal oo maartay inay geeri iyo waxyaalo inay imaadeen ilaahay baa maartay aan ka baryayna inay dhicin laakiin dadaal ma samaynahayna haddii ay sii socoto 3 wiig oo kadib arrinta inay gacanta ka baxday qatar ay u leedahay waxaa kale oo aad maqli doontaan sare u kaca doolarka Mareykanka iyo sida uu dunida u saameeyay qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan subaxnimo uu soo saaray Jamaaludiin Axmed Cabdiraxmaan anigoo Xasan Sheekh Cumar ayaan idin la socodsiin doona dhageystayaal hase ahaatee waxaynu ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Mucaawiye Maxamed Buraale mahadsanid xasan madaxweyne Joe Biden ayaa uga digay Ruushka inuusan u hanjabi karin Mareykanka kadib markii Vladimir Putin uu ku dhawaaqay inuu goostay 4 gobol oo ka tirsan Ukraine isla markaana sheegay wax kasta ku qaadatay uu difaaci doono dhulkaasi Biden waxa uu ballan qaaday in Ukraine uu siinayo hub si ay isaga difaacdo Ruushka madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa ka jawaabay dhulka uu goostay Ruushka isagoo bilaabay olole degdeg ah si uu u biiro gaashaanbuurta NATO inkastoo aysan jirin rajo degdeg ah oo isbahaysiga ku aqbalayo inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO Zelensky waxa uu soo kala sheegay in weerarka celiska ee ka socda deegaanada bariga Ukraine ee ka dhanka Ruushka ay horumar muhiim ah ka gaareen gaar ahaan magaalada Lyman oo uu qabsaday Ruushka waxaana lagu soo warramay in ciidamada ay isku hareereen halkaasi dadka ku nool gobolka South Carolina ee dalka Mareykanka ayaa waxa saameeyay roobabka mihigaanka ee dabaylaha wata ee ka daayay halkaasi waxaana jimcihii xeebaha ku dhuftay duufaanta ayaan duufaano xoogan ayaa soo kale ku dhuftay magaalada taariikhiga ee Charleston ciidan sheegay inaysan ku qanacsanayn dawladda ayaa ku dhawaaqay inay xilka ka tuureen hogaamiyihii dalka Burkina Faso bayaan uu telefishinka qaranka ka akhriyay sarkaal ka tirsan militariga oo lagu magacaabo Ibrahim Traoré ayaa sheegay in xilka ay ka tuureen hogaamiyihii militariga Paul Henry Damiba isla markaana ay kala direen xukuumadda ugu dambeyntiina Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay 2 gantaal oo nooca ballistic ah waa tallaabadii ugu dambeysay ee ka soo horjeeday xeerarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee mamnuucaya tijaabinta hubkan ila wareedyo ku sugan Tokyo ayaa sheegay in gantaaladan ay ku dhaceen aagga ganacsiga gaar ahaan meel ka baxsan Japan xukuumadda Pyongyang ayaa sar u qaaday sanadkan tijaabinta gantaalada warkii dunida inta aad buu mahadsan yahay Mucaawiye Maxamed Buraale oo soo jeedinayay wararka caalamka dhageystayaal haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka sidii aad ku maqlayseen warka caalamka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay Ruushka in uusan markaasi ugu hanjabi karin Mareykanka kadib markii Vladimir Putin uu ku dhawaaqay inuu goostay 4 gobol oo ka tirsan dalka Ukraine madaxweynaha Ruushka ayaa waxa uu sheegay in awood kasta uu u adeegsan doono sidii uu u difaaci lahaa gobolada uu ka goostay ee dalka Ukraine warbixinta arinta BBC-da ay ka qortay waxa soo jeedinaya Jamaaludiin Axmed Cabdiraxmaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa heshiiska ku biirida Ruushka la saxiixday hogaamiyaasha ay Moscow u soo magacawday gobollo ka tirsan Ukraine oo kala Kherson, Zaporizhia, Luhansk iyo Donetsk kuwaasi oo Putin sheegay inay dadkooda u codeeyeen ka mid noqoshada Ruushka xafladda heshiiskan lagu kala saxiixday ayaa ka dhacday hoolka St. George's ee Kremlinka Putin oo goobta khudbad dheer ka jeediyay ayaa wuxuu sheegay in gobolladaasi ay weligood ahaan doonaan qayb ka mid ah Ruushka xukuumadda Kiev oo talaabadan ka falcelinaysa ayaa bilowday dalab cusub oo degdeg ah oo ay ku doonayso inay qayb uga noqoto isbahaysiga NATO madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo ay garab taagan yihiin ra'iisul wasaarihiisa iyo afhayeenkiisa baarlamaanka ayaa Moscow ku eedeeyay inay dib u habeen ku samaynayso xuduudaha Ukraine iyadoo adeegsanayso dil cagajugulayn iyo been abuur Zelensky ayaa sidoo kale sheegay inay qaadayaan talaabada muhiimka ah inay saxiixaan codsiga Ukraine ee ay ku doonayso inay qayb uga noqoto NATO
xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato jens stoltenberg ayaa arrinkan ka cagajiidaya isagoona sheegay in go'aanka ay leeyihiin 30 xubnood ee ururka nato ku bahaysan laakiin waxa uu cambaareeyey tallaabooyinka uu ruushka qaaday ee uu ku qabsaday dhulka ukraine isagoo ku tilmaamay tii ugu darnayd tan iyo bilowgii dagaalka ukraine dhanka kale madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa isna putin ku eedeeyey isku day khiyaano ah oo uu ku sheeganayo dhulka ukraine wuxuuna sheegay in tallaabadaasi ay liddi ku tahay shuruucda qaramada midoobay u degsan madaxweynaha midowda yurub ursula von der ayaa dhankeeda arrintan ku tilmaamtay mid sharci darro ah madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa isna ballan qaaday inuu garab istaagi doono ukraine si ay wax uga qabato gardarrada ruushka iyo inay dib u soo ceshato dhulkeeda oo dhan putin ayaa ku andacooday in muwaadiniinta khason zabrosihiya luhansk iyo donetska ay u codeeyeen inay dib ula midoobaan dadkooda iyo dalkooda hooyo isagoo ula jeeday aftisi iskiisa uu u soo abaabulay oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacday gobolladaasi balse ukraine iyo dowladaha reer galbeedka ayaa cambaareeyay codbixintaasi waxayna ku tilmaameen mid been abuur ah hogaamiyaha ruushka ayaa waxa uu u muuqday inuu mar kale soo cusboonaysiiyey hanjabaadiisii aan caddayn ee ahayd inuu isticmaali doono hubka nucleerka isagoo ku eedeeyey maraykanka inuu uga horreeyey isticmaalka nucleerka markii uu duqeeyey magaalooyinka jabaan ee nagasaki iyo hiroshima dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka warbaahinta ruushka ayaa dhacdadan ku tilmaamtay mid taariikhi ah balse khudbadda mr putin ayaa wax faahfaahin ah ka bixinin baaxadda dhulka uu ruushka sheeganayo jamaal wuu mahadsan yahay haddii aynu ku sii soconno wararka la xiriira ukraine gobolka kherson oo ka mid a goboladaasi uu ku dhawaaqay ruushku inuu goostay ayaa dhowaan b b c du waxay fursad naadir ah u heshay halkaa in ay tagto islamarkaana waxaa ka jira halkaa ay soo aragto weriye ka tirsan b b c da oo lagu magacaabo cabdijaliil cabdurasulof ayaa fursadaas helay oo halkaa tegey waa halka ay dabcan ku dagaalamayeen ciidamada ukraine iyo kuwa ruushka warbixintan ayuuna ka soo diray waxaa soo jeedinaya cabdulqaadir yuusuf cali waxaan maqlaynaa rasaas dhacaysa halkan aanu maraynana waxay aad ugu dhowdahay furinta waana meel bannaan oo sheedda laga soo arkayo marka waa inaan deg deg u dhaafnaa annaga oo geedaha tallaalka ah ee meesha ku yaal ku gabanayna ayaa taliya ku-xigeenka ururka halkan jooga oo la yidhaahdo marsel ayaa wuxuu leeyahay dhawaqa aad maqlaysaan waa madaafiicda ciidamada yukrain ururkiisu wuxuu xagga hore kaga jiraa furinta dagaalka ka socda kherson walow ay horay u socodka ciidamadooda ee dhanka koonfureed gaabis tahay haddana waxaa muuqata in xaaladdu haatan ay aad isu beddeshay bil ka hor ciidamada ruushku halkan aad bay u duqaynayeen iminkase way joogsatay duqayntaasi sababtoo ah waxaana caawinaya gantaalaha ridada dheer ee aannu hellay goobihii saanaddu u taallay ciidamada ruushkana waannu burburinay dariiqii sahaydu u soo maraysana sidoo kale duqayn baannu ku haynaa markaa iminka iyaga qudhoodii ayay rasaastii iyo saanadii gabaabsi ku tahay waxaananu isku dayaynaa inaannu dib u riixno askartii waxay orod ku galeen dhisme dumay oo ku yaalla beer dhexdeed halkan waxay ciidamada yukrain qabsadeen 7 un ka hor haatanna dhufaysyo ayay ka qodanayaan goobahan ay qabsadeen goobta ilaalada ruushka ay fadhiyaan waxay halkan u jirtaa 500 mitir oo keliya qoryaha waaweyn ayaa laysdhaafsanayaa oo dhinac weliba wuxuu miciin bidayaa madaafiicda si uu dhanka kale dib ugu riixo stuus oo ah taliyaha unugan ka tirsan ciidamada yukrain ayaa ka hadlaya xaaladda hadda madaafiicda ayaa shaqada ugu badan qabta waxaan si joogtaa u burburinaa goobaha ay cadowgu rasaasta ka soo ridaan mararka qaarkood waxay ciidamadeena lugta ah la beegsadaan baabuurta hubaysan islamarkaana waxaannu ka jawaabnay oo meesha ka saarnay khatartaasi ururkan waxaa amar lagu siiyey inay duqeeyaan goob ay yaallaan madaafiicda ruushka waxay markiiba istaareen baabuurta ay ku rakiban yihiin madaafiicda duugga ah ee uu samayn jiray suufiyeedku waxaanay u dhaqaaqeen dhanka ay goobtaasi ka xigto madaafiicda ku rakiban baabuurtaasi waxaa halkaasi laga yidhaahdaa ubax hase yeeshee sinaba uguma eka ubax waxaabad mooddaa oo uu u egyahay taangii weliba kuwii hore ah hubkani muddadii inuu shaqeeyo loogu talagalay
waa hore ayay ku ekayd laakiin ciidanka yukrain way ku khasban yihiin inay isticmaalaan wax kasta oo ay heli karaan. taliyaha ururka ayaa amar ku bixinaya in madaafiicda la rido markaasaa deegaanku dhagahana qarxiyey goobtiina qiiq miran ayay noqotay 3 saalbo markii la riday ayaanu haddana goobtii dib uga gurannay. haatan waxaa qasab ku noqotay ururkan in mar haddii amarkii duqaynta ahaa ee la siiyey ay fuliyeen ay degdeg goobta uga baxaan waayo waxaa dhici karta in ciidamada ruushku goobta lagaga soo riday madaafiicdaas ay toos u gartaan oo iyagana duqeeyaan halkan. waxay markaas sidoo kale rasaas badan ku fureen kaynta u dhow si haddii cid aagga ku jirta oo ilaalaha uga harto waxaanay iyagoo badqaba ku noqdeen saldhigoodii ay ka dhaqaaqeen. hawshii markaan loo diray way soo guteen laakiin dagaalka weli fari kama qodna. wuu mahadsan yahay cabdulqaadir yuusuf cali oo soo jeedinayay warbixintaasi. welina halkaad naga dhegaysanaysaan waa b b c. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. abaarta ka jirta dhulka Soomaalida ayaa saameyn weyn yeelatay iyadoo gobolka waqooyi bari Kenya uu ka mid yahay meelaha abaartu sida ba'an ay ugu dhufatay. dadka ayaa deegaanadoodii isaga barakacay si ay xoolahooda inta u hartay biyo ugu raadiyaan. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka ayaana hadda walwal ka muujinaya nolosha dadka haddii abaartu ay sii jirto oo aanay da'in raxmadda Rabbi. xildhibaan Xuseen Weytaan oo laga soo doorto bariga Mandheera ayaa Ciise Xaaji Cabdulle uga warramay baaxadda abaarta iyo dadaalada ay wadaan ismaamulada ka jira gobolka waqooyi bari gaar ahaan Mandheera. abaar ba'an ayaa dhulka ka jirta dadka dhib fara badan ayay qabaan xoolihii maartay hadda dameerihii dadkii hataa way u gaari la'ayeen meelihii biyaha laga soo dhaaminay xoolihii erigii iyo wixii waxa way dhimanayaan dadkii ayaa hadda loo soo socdaa runtii ilaahay goyna waxdaha ayaan ka baryaynaa in arrintaas uu ilaahay uu maartay uu gacantiisa uu noo fiday laakiin culays fara badan ayaa jira xuseen dhawaan waxaad la kulateen dowladda madaxweynahana waa kii gargaar ku dhawaaqay la gaarsiinayo oo ay hormuud ka yihiin militariga ilaa hadda xaalku waa sidee wallahi waxa hadda dowladda ka soo baxay oo hadda county kasta ama sub county loo diray wax maanta anfacaya ama dadkii wax u taraya ma aha wax hadda la dhiibi shalay waana lala soo xiriiray 200 oo juwaan oo maartay bariis ah 360 oo maartay digir ah iyo 100 oo maartay baashan subka kona beefta liidada waxaas maanta sub county wax ay ka qabaneen malaha wax maanta ay u tariyo ay ka bedelina ma jiraan hadda xoogaa waxaan insha Allah ay hadda dadku ku fiican yihiin NGO-yaalka ama maartay hay'adaha ayaa maartay lacaga oo cash transfers liidada ayaa dadka la siinayaa masaakiinta hadda qiyaasay inkastoo dadkii ay wada gaarayeen oo dadka masaakiinta ay badan tahay dadka abaaraha ay si xun ugu dhaceen ay zaid yihiin laakiin hadda sida hore waa la dhaamaa oo cash transfer oo NGO-yaalka ay qaybinayaan si ayaa hadda dadka ayaa ilaa qiyaas gaartay laakiin mid dawladda ka soo baxday hadda runtii zaid ay u yartay waa wax hadda maanta wax ka soo qoyna maaha meeqa qof ayaa ku qiyaasteen in ay abaartu saameysay deegaankaaga abaarta dadka ay saameysay waxa waaye qof kasta oo weli dadka miyiga ah u badnaa inkastoo dadka magaalada iyo dadka miyiga ay isku xiran yihiin oo wixii baadiyaha ka soo baxa dadka magaaladan ay ku noolaayeen 100,000 waaye dadka hadda ay saameysay ani hadda markaan hadlaana Mandheera County dhamaala wax 1 milyan ama ka badan dadka waxa waaye waa ka badan yahay waa ogsanta populationka Mandheera County dhammaan abaarta way wada haysaa dadkana wax yar oo maartay qutulyoonkooda iska haysta ma ogi say u badan yihiin maartay dadka dad noloshooda awooda kuma jiraan dowlad goboleedka maxay qabatay ilaa hadda ilaan waa ogna iyadana way cusub tahay oo xilka dhawaan bay la wareegtay balse dadkii way ka barsugayaan shirarkii way ka qayb galeen roobabkii uma muuqda kuwa haatan soo socdo saadaashu sida la falayay maxaa xiga ee dowlad goboleedyada ay qaban karaan dowlad goboleed saad ogsan tahay saad u sheegtay waxa waaye hadda ay soo gashay budget ugu horreeyay lama soo kulmin oo weli looma soo daayimin marka dadaal badan oo hadda ay sameynayaan waa jiraan laakiin xoolihii ay dadka wax ugu qaban lahaayeen ama abaarta maarta wax looga qaban lahaay ilaa hadda soo ma gaarin waa wax oo hadda planning oo maartay waqti ay hadda lacagtan hadda lacag maanta berri aan imaadayn marka
lacagta hadda maanta abaartan dad wax ka qabanay maaha. marka maxaad saadaalinaysiin haddii roobabka aysan da'in muddooyinka soo socda? wallahi horta waan qaydinahaynaa oo annaga hadda NGO-yaalka internationalka ahaa WFP iyo USAID iyo kuwa badan aan daba soconnaa sida maaragtay dadka kaashka la siinaya la badiyo nambarkooda oo dad fara badan lagu gaarsiiyey. raashiinna waan raadinahaynaa, waa ku daba soconnaa. biidhaaminna hadda waan wadnaa oo meelaha ayaan ka wadnaa oo NGO-yaalka ayaan maaragtay u isticmaali haynaa. laakiin runtii ilaahay waxaan ka baryaynaa in maaragtay oo abaartan ilaahay uu naga soo bixi sababteed gacan bini'aadan kuma filna, gacan ilaahay baan ku filin. annaga hadda wixii yaroon samaynahayn waa un dadaal oo maaragtay inay geeri iyo waxyaale inay imaadin ilaahay baa maaragtay aan ka baryayna inay dhicin, laakiin dadaal baan samaynahaynaa. haddii ay sii socoto 3 wiig oo hadda kadib arrinta inay gacanta ka baxday khatar ay u leedahay, ilaahay waxaan ka baryaynaa gacantiisa inuu ilaahay noo fiday. maxaad ugu baaqi lahayd hay-adaha gargaarka iyo kuwa soomaaliyeed ganacsatada naftirkooda hantida leh ee jooga ay ku dhegaysanayaan? waxaan leeyahay oo baaqa u horeeya waxaan u diraa horta dowladda Kenya inay budget fiican ay u samaysa. ilaa 23 county ayaa hadda la sheegay in abaartan ay si xun ay u taabatay, in budget fiican ay horta u qoondeysa ayaa dowladda Kenya ayaa ka codsanaa. midda labaad hay-adaha oo deeq-bixiyaalka ah oo maaragtay internationalka ama localka dhammaan waxaan ka codsanaya inay dadkan ay gaaraan oo maaragtay wixii hore ku talagaleen wax ka badan ay dadka ugu talagalaan oo dadka la siiyo. midda saddexaad waxaan ka codsanaya dadka ilaahay xoolaha aadiyey oo businessmenka oo xoolaha haystaan in ay xoolahoodii wax ka bixiyaan. waa sadaqatul jaariya, waa sadaqa waaye, ajir baa laga helayaa. adduunkan waa iska laba beri inay dadka ugu deeqaan oo abaarahan biidhaamintii raashiinkii ay ka qayb qaataan ayaan ka codsanaya insha allah. kaasi wuxuu ahaa xildhibaan xuseen weytaan oo laga soo doorto bariga magaalada Mandheera ee gobolka waqooyi bari Kenya oo u waramayay Ciise Xaaji Cabdulle. qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da ayaa qodobkaasi dhanka Facebook-ga aragtidooda kaga soo dhiibtay. Caydruus Maxamed Cumar oo jooga Boorama waxa uu leeyahay abaaraha baaxadda leh runtii waa kuwa markaasi wuxuu leeyahay walaacooda leh oo aad looga xumaado. allaha ayaan ka baryaynaa inuu roob keeno ayuu leeyahay. dhegeysto kale oo isna lagu magacaabo Qadar Sugow oo jooga Beledxa wuxuu leeyahay dadka abaarta haysato ee gobolka waqooyi bari aad baan uga xumahay, waxaana dadkaasi ugu baaqaya in alle bari ay sameeyaan oo ay alle ka toogaan in raxmadiisa uu u shubo ayuu leeyahay. way mahadsan yihiin. waa qaar ka mid a dhegeystayaasha BBC-da oo halkaa aragtidooda noogu soo diray. qodobada kale ee halkaa aan ku daawacnana waad ka soo dhiiban kartaan. markan aynu aadno dhinacaya dalka Burkina Faso, militariga dalkaasi ayaa telefishinka qaranka kaga dhawaaqay in xilkii ay ka qaadeen hogaamiyihii militariga ee dalkaasi Colonel Paul Henry Dambimba, waxaana la sheegayaa in ay ku eedeeyeen in aanay ku qancin sida uu markaasi dalka u maamulay. warkaasi waxaa isha soo mariyey oo haatan stuudiyaha igula soo biiray wariyaha BBC-da Mucaawiye Maxamed Buraale. Mucaawiye, maxaa ugu dambeeyey? xasan, sarkaal ka tirsan militariga dalka Burkina Faso ayaa telefishinka dowladda kaga dhawaaqay in xilkii laga tuuray hogaamiyihii militariga dalkaasi Colonel Paul Henry Damiba. sarkaalkan oo lagu magacaabo Ibrahim Traore ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaha militariga uu ku guuldareystay inuu wax ka qabto dhibaatooyinka amni darrada ee kooxaha islaamiyiinta ee ka howlgala dalkaasi ka geysanaya halkaasi, sidaa darteedna ay xilka uga tuureen. waxa uu intaasi ku daray in la xiray ama in la hakiyey dhammaan dhaqdhaqaaqyada xisbiyada siyaasadda. General Damiba ayaa bishii January afgembi kula wareegay awooddii dalkaasi kadib markii uu afgembiyey dowladdii rayidka ahayd ee lasoo doortay, isagoo xilligaasi ku andacooday in lagu guuldaraystay ka hortagga weerarada kooxaha islaamiyiinta. balse hogaamiyaha militariga ee haatan la afgembiyey ayaa awoodi waayey inuu wax ka qabto colaadda isniintii wax weerar ah oo markaasi weerar ka dhacay dalkaasi lagu dilay 11 askari oo saarnaa kolonyo baawura oo mariyay waqooyiga Burkina Faso. jimcihii Damiba waxa uu shacabka ugu baaqay inay isdejiyaan kadib markii rasaas laga maqlay qaybo ka mid ah caasimadda Burkina Faso. xasan, in ka badan 20 ka mid ah militariga oo wajigooda markaasi soo dabooshay ayaa saacado kadib ka soo muuqday telefishinka qaranka iyagoo ku dhawaaqay in xilkii ay ka tuureen hogaamiyihii militariga ee dalkaasi Burkina Faso. waayahay, marka hogaamiyihii xilka laga tuuray xagee buu ku dambeeyey Mucaawiye? xasan, oo markaan weli ku sii laaban xaalad dalkaasi waxaana Burkina Faso lagu soo rogay bandow soconaya 9 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo. lamana oga halka uu ku sugan yahay hogaamiyaha la afgembiyey Burkina Faso Paul Henry Damiba. Mareykanka ayaa shacabka ayaa u baaqay inay markaasi xaaladda dejiyaan dadkaas
wuxuuna muwaadiniintiisa maraykanka ku sugan dalkaasi sheegay inay yareeyaan dhaqdhaqaaqyadooda. bishii janaayo kalondamiba waxa ayaa xilka ka tuuray madaxweynihii dowladda rayidka ee burkina faso ee lasoo doortay roch kabore isagoo sheegay inuu ku guuldaraystay inuu wax ka qabtay rabshadaha sii kordhaya ay geysanayaan kooxaha islaamiyiinta ee ka howlgala dalkaasi. sidoo kale xasan dibadbaxyo ayaa ka socday dalka burkina faso dhowaan lagu soo horjeeday amni darada iyo weerarada ay geysanayaan kooxaha islaamiyiinta. kacdoonka islaamiyiinta ayaa ka bilowday burkina faso sanadkii 2015 waxaana ku dhintay kumanaan kun oo qof, waxaana guryahooda ka qaxay 2 milyan oo qof. dowladda dalka burkina fasona waxay sheegtay in tallaabadaasi wax weyn ay ka qaban doonto, inkastoo arintan ay markaasi galaafatay hogaamiyihii militariga ee dalka burkina faso. xasan dalka burkina faso waxaa soo maray ilaa 8 afgembi tan iyo markii uu xornimada qaatay sanadkii 1960. aad buu u mahadsan yahay mucaawiye maxamed buraale oo nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey afgembigaasi ka dhacay dalka burkina faso. dhegeystayaal weli halka aad naga dhegaysanaysaan waa b b c. bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal. wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah. haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta. waa hagaag dhegeystayaal, qodobo kale ayaa inoo soo socda oo ciyaarihii ay ka mid yihiin. hase ahaatee markaan dolarka maraykanka ayaa yeeshay awooddiisii ugu weyneed muddo 20 sano ah marka la barbar dhigo lacagaha kale ee waaweyn. taasi micnaheedu waa in hadda uu doolarku qaali yahay marka la iibsanayo. arrintaana waxa ay saamaysay ganacsiyada iyo qoysaska caalamka oo dhan. qiimaha doolarka oo si joogto ah tartan ugula jira ilaa 6 lacag oo kale oo ay ku jiraan yurowga midowda Yurub, giniga sterlinka iyo yeenka Jaban ayaa sanadkan 2022 sare u kacay 15%. arrimahaasi ayaanu ka wareysanay cabdinuur cali maxamed oo ah madaxa kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simid ee magaalada muqdisho. qadka telefoonka ayuuna ugu waramay wariyaha BBC-da Faadumo Macalin Abuukar. saddex waxyaabood ugu muhiimsan waxyaabaha keenay isbedelka ku yimid qiimaha doolarka ama qiimaha doolarka inuu kordho. sababta koowaad waxa waaye sicir bararka wuxuu ka dhacay Mareykanka. bangiga dhexe Mareykanka markuu wuxuu kor u qaaday lacagta dulsaarka oo loo yaqaano interest rate. lacagta dulsaarka oo bangiyada ay qaadaan, bangiga dhexe uu kor u qaado marka waxay keenay qofka Mareykanka maal gashto lacagta uu ku maal gashto inuu faa'iido badan ama dulsaar badan oo wadamada marka lacagaha la tartamo Mareykanka dadka kale ee maal gashala waxay lacagtooda u bedelayaan dollar, taasoo keentay in dalabka doolarka uu kor u bato, qiimaha doolarkan uu kor u kaco. sababta labaad waxa waaye sanadkan bilowgiisii dagaalkan oo Ruushka iyo Ukraine wuxuu sababay qiimaha shidaalka inuu kor u kaco kadib markii cunaqabateyn la saaray shidaalkii uu Ruushka keeni jiray. mar walba qiimaha oo doolarka iyo waxa isla socda qiimaha shidaalka markuu qaaliyo doolarka shidaalkan waxa lagu gataa doolar. lacagta marka dadka raba inay shidaalka gataan waxay ku qasban yihiin inay lacag badan helaan, doolar badan inay helaan si ay inta shidaal ay gadan jireen u gataan, taasoo sidoo kale keentay dalabka doolarka inuu bato. qalaasaha oo dagaal adduunyada ka dhacay sidoo kale wuxuu sababay wax la yiraahdo global risk ama khatar laga cabsanayo in dagaalku uu sii xoogisto. Soomaaliya oo inta badan meelo badan doolarka wax lagu kala iibsado, iyada saameyn noocee ah ayay arrintan ku yeelanaysaa? Soomaaliya saameynta oo doolarka qaaliga uu keenayo waxay tahay waqti dheer kadib suuqyada waxay la qabsan doonaan qiimaha doolarka ee qaaligadan marka waxay sababay sicir barar inuu dhaco, gaar ahaan ay qaaliyaan waxyaabihii ka imaan jiray dibadda, taasoo Soomaaliya ay qayb badan oo dhaqaalaheeda uu ku tiirsan. laakiin marka lacag la dhaho Soomaaliya waxaa muhiim ah oo adduunyada dhan ay uga duwan tahay lacagta shilin Soomaaliga ee Soomaaliya la isticmaalo tiradeeda ma kontrolo bangiga dhexe ee Soomaaliya soo lacag ay dawladda gaaranti garaysa maaha. sidaa darteed dadka Soomaaliyeed waxay isticmaalaan doolar ay isticmaalaan
lacagta ay dibadda kasoo diraanna dollar waaye midda ay mushaarka u qaataan canshuuraha ay ku bixiyaanna sidoo kale dollar waaye qiimaha marka oo lacagaha kale oo la isticmaalo sida shilin soomaaliga iyo saamaynta waxaan ku dhici lahayd laakiin waddanka dollar isticmaalo saamaynta ku dhacaysa waxay la mid tahay midda maraykanka ku dhacayso taasoo ay ka faa'iidayaan dadka haysto dollarka haysta haddii si kale aan u sheego waxaa waaye mar walba qiimaha lacagaha uu isbedelo qofka haysta lacagta qiimaheeda uu kordhay ugu faa'iida dadka soomaaliyeedna lacagta isticmaalaan waxay u badan tahay lacagtan mobilada laga diro oo mobile moneyga la dhaho taasoo ku cabirkeedu uu yahay ama ku shaqaysa dollar ku shaqaysa ma laga yaabaa marka in qiimaha dollarka uu hoos u dhaco maxaana keeni kara inuu hoos u dhaco waxaa keeni karo inuu hoos u dhaco haddii khataraha dhaqaale ee adduunyada hadda kusoo fool ay hoos u dhacaan ama ay yaraadaan qiimaha dollarka hoos u dhacaan sidoo kale wadamada china waxaa laga yaabaa ama sacuudiga inay ogolaadaan in ay wax ku gadaan china ay uga gadaan lacagteeda ruushkana hore wuxuu bilaabay inuu lacagtiisa ku gado shidaalka haddii marka la kala jaro xiriirka ka dhexeeya dollarka iyo shidaalka sidoo kale qiimaha dollarka hoos u dhici doonaa bangiga dhexe ee maraykanka ee ah bangiga ugu muhiimsan qaalaha adduunyada lacag badan waxay ku socotaa maraykanka because of dulsaarka qaaliga darteed qiimaha dollarka oo kor usii kaco marka waxay qaali ka dhigi doontaa waxyaabaha maraykanka ay dhoofiyaan taasoo yaray doonto saamaynta maraykanka uu ku lahaa suuqyada caalamiga sababtoo alaabta maraykanka ka timaadaa qaali noqon doonto dadka kale wadamada kale u wareegayaan dadkii maraykanka wax ka gelin bangiga dhexe maraykanka marka saamayntaas uu dareemo wuxuu ku qasbanaa doonaa qiimaha lacagtiisa inuu hoos u rido sababtoo dollarka qaaliga wuxuu keenaa dadka maraykanka wax u dhoofiyey inay wax faa'iidaan kuwa maraykanka wax kasoo dhoofsadaan ay khasaaraan sidaa darteed trade balancegiisa oo hore deficit u ahaa inuu deficitkii ahaa bangiga dhexe marka wuxuu ku qasban yahay inuu ka falceliyo arrinkaas qiimaha dollarkana uu dulsaarka hoos u dhigo danna qiimaha dollarka uu hoos u dhaco lacagta poundka ee ingiriiska oo kale toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa ognahay in si aad ah ay hoos ugu dhacda marka ayadana hoos u dhaca saameyn ma ku yeelan kartaa caalamka ingiriiska lacagtiisa wuxuu ka mid yahay lacagaha ugu qiimaha badan leh adduunyadii ay ka mid tahay waxaa saamaynta ku dhacdana waxaan waaye waxaa batay dadka haysta boonka ee dollarka rabaa because dollarka qaali wuxuu ka noqday suuqyada caalamka ka noqday marka ingiriiska dadka boonka wax ku gata marka laga barbardhigo dadka dollarka wax ku gato waxaa badan dadka dollarka wax ku gato so marka soo jiidashada waxay ku badan boonka ay ku badan cabdinuur cali maxamed oo ah madaxa kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ee magaalada muqdisho oo qadka telefoonka ugu waramayey faadumo macalin abuukar ayuu kaasi ahaa wararka ciyaaraha haddii aynu egno gaar ahaan ciyaaraha ka tirsan horyaalka ingiriiska ee galabta ilaa caawa dhacaya waxaa ka mid a kooxda arsenal ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda tottenham kooxda bournemouthna waxay la ciyaari doontaa kooxda brentford crystal palace waxay kulmi doonaan oo ay wada ciyaari doonaan chelsea fulhamna waxay la kulmi doontaa newcastle liverpool waxay is arki doonaan kooxda brighton southamptonna waxa ay fooda isdari doonaan kooxda everton westham ayaa iyaduna la kulmi doonta kooxda wolfis dhegeystayaal guud ahaan idaacaddii waa naga intaa waxay noo ballanaa haddii allah awoodol yidhaahdo labada duhurnimo inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo